بسم الله الرحمن الرحيم داوديش قيمها يقدرين تا naga badan oo waxaad ku soo dhawaataan barnaamij aanu maanta ku wareysan doono Korneel Axmed Jaamac Ciise Korneel Axmed Gedle oo toddobaad walba barnaamijkan uu xogta waa bari ka baxay telefishinka caalamiga ee waa bari TV barnaamijka Korneelka caawa waxaan ka wareysan doonaa dhacdooyinka cusub ee ka soo cusboonaaday guud ahaan dalka Soomaaliya barnaamijka toddobaad walba waxaa idin socodsiiyay aniga oo Cabbaas Suleymaan Jaamac Cabbaas Madani barnaamijku wuxuu dhacay sidoo كورنيل كسلو برنامجك محتوى بري وكسلو ويلي عباس اللي تيفي كسعته إيه كاميرا مانك إيه لما أنت وكسلو ويا وما سنتي سيدا في عنا دي صباقتين وما سنتها كورنيل عاوه ويدين دونا سؤال بدنا تابعنا يقول هان درك الصومالية ويستبدلون يقول هان وخدعي يقول هان درك الصومالية سؤال شكو وهو رئيسان كويدينيو كورنeel Axmed Gedle waxaa jirtay dhawaan uu ku dhawaaqay xukuumad cusub oo hogaaminaya ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ka kooban 68 xubnood xukuumad ka kooban sidee u aragtaa magacaabista golaha cusub ee wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya بسم الله الرحمن الرحيم عباس وكسلو وين يا مرلبات anigu ma soo dhaweynayo wasiirada aad sheegtay 68 ilaa 70 wasiir ee aad sheegtay anigu ma soo dhaweynayo sababtan u soo dhaweynayna waxa weeye anagu haddaanu nahay shacabka ummadda Soomaaliyeed waxaanu rabnay isbedel baan doonaynay inuu isbedel dhaco isbedelkaas oo aanu ka doonay ama ka filinay ama uu sheegay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagu sheegay inuu isbedel samayn doono ka duwan dawladda ka horeysay sida awgeed baan haddaanu nahay shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaan ba aanu shacabka ku tumno waxaanu ka sugaynay inuu isbedelku uu sheegay isagu ee aanu ku taageeray inuu keeno ayaanu sugaynay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu keenay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayuu keenay Xasan Cali Khayrena wuxuu keenay wasiiro 68 ilaa 70 wasiir ka kooban taanu sugaynay aanu ka sugaynay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre midna maaha sababtoo ah waxaanu doonaynay ama isbedelkii aanu doonaynay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku taageeray wuxuu ahaa in uu wasiiro yar oo tayo leh ilaa 15 ugu badnaan 25 wasiiro dawlayaal iyo wasiiro ku xigeenayaal 25 ugu badnaan ayaan anigu filayay ama 15 wasiir intaas sugay laakiin halka waxa muuqata inaan wax isbedel la yiraahdo aanu dhicin laakiin ay tahay intii dawladdii hore ay samaysay oo kale inuu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ay sameeyeen sababtoo ah isbedelka aanu doonaynay mu ahayn wasiiro fara badan oo nala siiyo wasiirada badan aanu cunayna meel ku qadaynayna waxa weeye waxay ahayd wasiirada yar fudud iyo wasiirada yar kooban oo budgetkooda leh oo xafiisyo qalabaysan leh oo ummadooda u shaqayn karo markay wasiiradu yar yihiin oo quality ay yihiin way u shaqayn karaan ummadda sababtoo ah shaqada lafteeda u fudud
wasiirka marka laga magacaabayo wasiirku wuxuu baahan yahay xafiis qalabaysan wasiirku wuxuu baahan yahay budget oo ku shaqeeyo ayuu baahan yahay laakiin wasiirro badan oo la iska magacaaba waxa qiimeeyo ay soo kordhinaysaa ma jiro wasiiradii hore iyo kuwii ka sii horreyn jiray dawladii hore intuba wax allaale iyo waxa ay qabteen male dhammaantood waxay ku xaraysnaayeen hoteelada xamar bay isku ilaalinayeen oo marna al-shabaab ku leynayeen marna ay halkaas kaga xaraysnaayeen wax allaale iyo waxa ay qabteen male annagu markaa cabaasow waxaanu rabnay isbeddel baanu rabnay iyo golo wasiiro yar ayaanu rabnay laakiin halkaa waxaa ka muuqata isbeddelkii uu ku dhawaaqay maxamed cabdilaahi farmaajo ee aanu soomaali oo dhan ay ku taageertay ina wax allaale iyo wax uu ka fuliyay aana jirin hameenka caawa sidaas marka anigu adeer u arka cabaaso weliye u arkaa inaan maxamed cabdilaahi farmaajo iyo xasan cali khayre inay wax allaale iyo wax ay isbeddel ay sameeyeen aanay jirin ee ay tahay jugjug meeshaada joog waa masantahay cornele sida qiimaha leh aad su-aasha nooga jawaabtay waana kaaga mahad celinaa fursadda qaaliga aad telefishinka caalamiga waa baraysiisay su-aasheeda labaad waxa weeye cornele waxaan usoo gudagalaynaa maxaa kasoo jeedaa dhalash ahaan gobolada sool sanaag cayn ee khaatumo state of Soomaaliya bal bulshada waxaa tahay siyaasi weyn oo u dhuun dalola arrimaha siyaasadda Soomaalida gaar ahaan reer khaatumo maaha markii ugu horeysay barnaamijka ugu wareysigan ka baxo marar ka horeysay baa jirta oo TV toos uga baxay maamulka khaatumo hadafkee loo dhisay maamulka khaatumo oo aad ka mid ahayd raggii yageelay maamulka khaatumo dhisay dhibaato see leeg intee in leeg baa loo soo maray dhisitaanka maamulka waa ku salaamaya su-aal fiican baan idin weydiisay waxaan moodaa laba su-aalood oo ah khaatumo maxaa loo sameeyey iyo maxaa khaatumo dhib intee leeg baa loo soo maray labadaas su-aalood horta khaatumo waxaa loo sameeyey in ummadda degan sool sanaag iyo cayn in ay samaysato nidaam maamul oo ay iyadu ku kala badbaado iyo mid ay ku samaysato horumarkii arrimaha bulshada maadaama qarankii Soomaaliyeed uu burburay maadaama uu reer waliba uu dhulkiisii xadxadhay sida awgeed ayaa sool iyo sanaag iyo cayn loogu talagalay iyaguna inay maamul samaystaan oo sida awgeed iyaguna ku kala badbaadaan wixii horumarana ay ku samaystaan wixii kaga maqan Soomaali ama dawladdaas dhexana iyagoo isku duuban oo midaysan ay xaqooda u raadsadaan horta sababta maamulka khaatumo loo sameeyay waa saa in ay isu soo ururto nidaamkii iyo wadajirkii iyo waxqabsigii ummadda Soomaaliya sanagacay horta sidaas loo sameeyay maamul goboleedka khaatumo sida maamulada gobolada Soomaaliya oo kale iyagu ay u samaysteen sidaas horta loo sameeyay maxaa loo soo dhibaato intee leeg baa loo soo maray adeer Abbas khaatumo samaynteedii waxaa loo soo maray dhib weyn baa loo soo maray hal sano ayaa laga shaqaynayay in la sameeyo maamul goboleed khaatumo la yiraahdo in la sameeyo intan maamulka la samaynin shir ka horeeya oo ummadda reer khaatumo la isugu keeno oo halkaas ay fikirkooda ay isku dhaafsadaan oo halkaas ay go'aan ku gaaraan iyagoo dhan oo cid ka maqan jirin meesha ay maseerkoodii iyo arrimahoodii ay marin lahaayeen waad og tahay 15 nin ayaa markii ugu horeysay sahan ahaan loogu diray gobolada Soomaaliya sanagacayn nimanka 15 way tageen goboladii oo dhan bay mareen degmooyinkii bay mareen tuulooyinkii bay tageen ummadii Ilaahay meesha deegaanada oo dhan bay la kulmeen waxay soo arkeen ummad u ooman ama u haraadan ama u gaajaysan maamul wax la yiraahdo sida markay soo arkeen nimankii halka tagay dib ayay ugu soo noqdeen bulshaweyntii reer Khaatumo ee dibad iyo gudabanaay waxayna u sheegeen oo report ka dhiibeen in ummadda ay u tageen Soomaaliya sanagacayn inay u baahan yihiin maamul sidaas ayay warkay ku keeneen ayaa waxa ka dhashay maadaama nimankaas report-ka keeneen oo ahaa in gobolada Sool iyo Sanaag cayn dadkay ku soo arkeen ay
وهرادين مامو سيداس أيام مركا واحد إعلاميي أمل السميي إن لا يسقطه مجالات التاريخ جاء طلع شير إن لا يسقطه وذكته عباس ولي وحيسوت جاي دل لو قياسه صدق كن إلا شن كن أوقف أو ككومن ومدي رخا طبعا نوع كستيين وحلو قياسا إن عاقلين تا كقب قلي سديتا إلا بقول عاقل أو تدك غير خاطمه أو دل عاقلة مثلا يدور يتمن جراد يدور كل أردن يرى يقبله يقويهن غير خاطمه يسوي كذا لما صدق لكم إلا شنطة كون يقف وحري سقط تجين بقرات له هل كاس أيام جوان لجو جاري إذا قفنا الخصبين غير خاطمه إذا قفنا الأفضوبين إذا قفنا الإسكيرين جوان واحد لجو جاري إن لا السماء استمام الخاتمة اللي له مجا خاتمه قل كلي قف كلي يسكسر اللي متجرو دمان مدي ره خاتمه جوان واحد كو جاري إن أي السماء استم مجا خاتمه إمام اللي هذا مام الجبلات الخاتمه هل كاس جوان كو جاري يلا عندنا الخصبين جوان كاس لجو جاري مام الجبلات كخاتمه اللي وصل يوا جوان كصوب حيدتك سكوت يطلع إن دبت الله صمري دد أيا ودعوا عمي شركة مركي لآلي دد دبتها كتغي أو شركة السعودي أيا بابورتي لقلني أو هالكاس كومكو قاي أو هالكا كوين دبيري أو هالكا كوين دبيري أو هالكا دباتك سوغاني إن قار وودنتين قار إنتاج دوفين أو تاجين تلاح أو إنتي سيسول هاي الشركة وضع هالصعدة أي الشقوين كودي مركي سونغون كروينا وقتي كان الشقوين كودي لوغيري dad baa u curyaanay dad baa u dhintay dhibaato dad baa dhaqaalahoodii ku dhamaaday dhibaatada inta la eg ayaa hadal su'aashay weydiisay dhibaato inta loo soo maray dhibaatada inta la eg ayaa loo soo maray khaatimo alxamdulillaah rabbil caalamiin waan lagu guuleystay maamulka hogaamiyaha hadda professor Ali Khalif Galay iyo golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka aad aragtay ee dastuurka leh ee aad aragtay waa maamulka halka ka soo baxay iyo nidaamka ka soo baxay weey ee shirka ka soo baxay thank you Cornele sida quruxda badan ee mission vision ugu sameysay su'aashaan ka weydiinay dhibaatadii loo soo maray maamulka qaatimo isida of Soomaaliya xubnihii G11 waa xubno odayaal oo si weyn looga yaqaan deegaanada gobolada Sool Sanaag Cayn ee qaatimo isida of Soomaaliya waxaa jirtay dhawaanahan ama suuqyada la soo dhaafay wiilka la soo dhaafay inay shirar qabteen G11 ay ku baaqaan shirar kale والله من شركة تلاح سيدا يجو رحلة لها إن لو قبض مجال مقدوش يحرم ذلك الصومالية كدمنا إنه لو قبض شيء مجال أبوه والله شركة وجبيهان لجسور كده ما ممكن خاتم سيدا إنه حقته كوهينه الحقته كهيسي فكرة ده جيل لبن وجيل لبن قمنا هاي إنه يصور السن ما ممكن خاتم وإنه وهذا الكتاب كده كدمنا إنه يثبتله إنه هاي فكرة جارة إلي ما دين سوى تكرار horta bajiro horta wax G11 wax la yiraahdo ama urur G11 la yiraahdo oo la doortay oo shaqeeya oo Sool iyo Sanaag iyo Cayn ka diiwaan gashan horta ma jiro haddaad ka wado magacani wuxuu jiray markii la sameeyay khaatimo shirki inta la sameeyay ka hor waxa jiray niman odayaal oo aqoonyahana علي خليف مدحوين علي خليف لفتي سكوتشرو أو تي إلا بالأورنجري مقعد تي إلا بني مركز الأورنجري لفتي ذنا مقعد ملعب كدورتين مجري جروب كاسوحة جروب أقويهنا أو يوسف رقامي أو ربي إن السمايان مامور كخاتمه هل كانوا لم يدعين دتكي تلاح السوشيال وما ده سكوتكتي أي كم يدعين هل كاسينا كل ما عطي واحد شيء لما ليله هذا يوحى صوردن يجروبس كان الدول والبهن تلاقي هاي هل كاسي هرت كل ما عطي مركي ما ممكن السنية إن نمن كشيء لما حل جا مجا على هنا مركي السنية مع الجبلات كاس مدحوينها يقولها وسير يقولها برنامج مكان السنيين يجي اللفت هذا أي ورقة قري ويري أنه لقب بلا مانتا مر حدينه ما مصمم سني وحوي شيء لما وحلي هذا دب ما جرته وحور دب ريخات ولاية ما جرته وحنولي أنه الدولة داس خاطمه أنه سمي سني الدمانتي أنه كقيد قال الدمانتي أنه أنكل وذا قادني إن
ayaynu leenahay wax ji lama leeyahdo iyo wax ji saban leeyahda midna jirto haddana ma jirto annama aaminsan ma jirto laakiin haddaad ka wado 7 nin ama 7 oday oo reer Khaatumo oo habeen dhaweyto qol halkaas oo isku xidhan ummadii reer Khaatumo u yeedho yiri arrin baan u haynaa horta anigu nimankan horaan baa oga anigu inay khayr soo wadin horaan baa oga laakiin waan kamid ahaa dadkii qolka galay nimankaasi qol bay isku soo xidheen dad 76 reer Khaatumo ayaa ka qayb ayaa galay qolka galay dabeedna ilaa 3-4 qof ayagu rabeen bay su'aalo weydiiyay nimankaas waxa weeye ku dheeraan maayo waa niman fashilmay todobada nin ee habeenkii ugu dambeysay qolka ku xidhnaa waa nimanka fashilmay waa nimankii ugu dambeysay iyagu xitaa saxiixii iyo heshiiskii Somaliland iyo Khaatumo ka qayb galay qaar kamid ah ku jiray oo ahaa shirki ka dhacay Addis Ababa ka dhacay labada maamul wada hadalkii halka ka dhacay ay wax ka soo saxeexeen ay markay soo noqdeen ummadii reer Khaatumo ee dibadda iyo gudaba joogtay u sheegay in halka guul lagu gaaray Somaliland iyo Khaatumo wada hadal fiican oo 12 qodob ah inay ka soo baxeen waa nimanka saxeexay 12 qodob ee aad aragtay ee maanta maamul goboleedka Khaatumo iyo Somaliland saxeexeen 7 nin aad sheegayso qayb kamid ah waa nimanka saxeexay markii dambana إلا وأنا ما لقي أبي إنه يشد أول بيشد لهين وحلقي أبا إلا ما أنت تلاح إلا ما أنت أرد الصباح صحيحين إلا ما أنت شيء إلا بين أي لهين وانا معطي إنه يشدون لهين إسكوس أوروري نمان كاس أدر وأنا ما فشل مي وأنا ما فشل مي وأنا من حتى لو أبي نمان دأدي أنا مركب وحنوش شيء نمان كوضياش هذا الرضي إنه يسكع عبادستان إنه الشيطان كيسكن ناران إن أي كبحان دبندابيدا يدباتدا iyo qoloqolayntan iyo groupiskan ay ku hayaan reer Khaatumo saacadan hadda la hadlayo ay iska daayaan oo niman odayaal waaweyn soo shaqeeyay inay iska cibaadaystaan dadka reer Khaatumo umada reer Khaatumo ay u duceeyaan anigu nimanka taas kula talinaya laakiin waxa la yiraahdo G11 iyo G7 iyo G6 midna ma jirtaado oo ma santahay korreela marka waxaad leedahay sida halkaaga ka dhawaaqsay dadkani waa jiraan xilli G11 lahaay oo uusan baarlamaan dhisnayn laakiin maanta baarlamaan baa dhisan xukuumad baa dhisan wax talada dalka ama dadka SSC waxa ka go'daa baarlamaan iyo xukuumad waa sax wari Cabbaas waa sax adba wad garanaysaa maxaa loo sameeyay maamul goboleedka Khaatumo maxaa maamul Khaatumo loo sameeyay maxaa madaxweyne loo sameeyay maxaa golo wasiir loo sameeyay maxaa golo baarlamaan loo sameeyay maxaa dastuur loo sameeyay maxaa dawladdu samaysaa معناه waxa weeye in kooxaysi iyo ururo magacyada baxa iyo qabiilaysi iyo waxaas oo dhan laga baxo in maamul macnihiisu waa inuu maamul ummadaas maamulku ay weynayaan waa inuu hago haday noqoto arrimaha bulshada haday noqoto arrimaha dabadeed haday wax kasta haday noqoto caafimaad haday noqoto iskuul haday noqoto wax walba maamulka iyo nidaamkaas inuu inoo wada aynu samaysanay maxay maamulku u samaysanay adeer waxa weeye waxaan ku sheegay Cabbaas maamulka sharciga ah waa maamulka Khaatumo ninkii raba isagu xukun rabaana maalinta xilligiisu dhamaado dawaysa soo sharci kara waa furata inuu soo sharci hadii madaxweyne doonayo hadii wasiir doonayo hadii gudoomiye baarlamaan doonayo dawaysa soo sharci kara laakiin maanta aynu joogno xukuumadda sharciga ah waa xukuumadda Khaatumo wixii ka baxsan maamulka Khaatumo waa sharci daro oo ma santahay waxaa jirta magaalada Laascaanood baynu imaanaynaa xarunta ama caasimadda reer Khaatumo Laascaanood waxaa jirta dhawaanahan shirar ay qabanayeen dadka deegaanku ama qabiilo ku abtirsada gobolka Sool degan shirarkaas oo ay magacyo badan ugu magacaabeeyeen sida Maxamuud Bari oo kale Maxamuud Bari wuxuu ka dambeeyay shirar Somaliland heshiis ay kula gashay Arboogeys iyo Cadcadeeyo qaar ka tirsan beelaha gobolka Sool waxaa ka qayb galay shirarkaasi qaar kamid ah golaha wasiirada Somaliland hogaaminaya Yaasiin Maxamed Ciir Faraton wasiirka arrimaha gudaha Somaliland shirkaasi waxaa laga soo horjeestay maamulka Khaatumo iyo lagu taageeray Somaliland bulshada reer Khaatumo aragti kala duwan bay ka dhibatay fikirkaaga korreela waa mahadsantahay wari Cabbaas haddaad ka wado baryahan dambe dadkii ama groupiski ka qaylinayay gobolka Sool magaalada Laascaanood ka qaylinayay ee ku hadaaqayay Maxamuud Garaad ama Maxamuud Bari ku dhawaaqayay
horta waxaan kuu sheegayaa wariye dadka halka ka hadaaqayay in aanay maxamuud garaad iyo maxamuud bari dad matalayaan ahayn maxamuud garaad waa kee maxamuud garaad maxamuud garaad waa qabiil ama reer ka tirsan reeraha walaalaha ee reer khaatumo ee sool iyo sanaag iyo cayn degan reer ka tirsan weeye maxamuud garaad maxamuud garaad ma aha 4 nin iyo 5 nin iyo 4 qaadwalayaal iyo 4 ilka jaban qol ama hotel xamda intay isugu yimaadaan halka shir ku qabta la yiraahdo maxamuud garaad ayaa shiray ama maxamuud bari ayaa shiray hotel xamdi lascaano horta ma aha maxamuud garaad ma qaado hotel xamdi lascaano ma qaado maxamuud garaad waa reer ballaaran aniga dhiigayga iyo dheecaankayga ayaa maxamuud garaad ka samaysan anaa maxamuud garaad waxa laala iyo wax ka jira oo maxamuud garaad la yiraahdaa oo reer ah oo lascaano ku shiray oo go'aanba soo saaray ma jiraan maxamuud garaad waa reer ballaaran waa reer dhulbahanta waa reer khaatumo waa dadka khaatumo sameeyey waa dadka khaatumo gacanta ku haya waa dadka khaatumo maamulaya kooxda aad aragtayna waa koox ku soo hungowday ama ku soo feelgarowday waxa la'aan ay ka muuqatay dad waxa la'aan ka muuqatay way akaayeen marka waxaan kuu sheegayaa anoo soo gaabinaya dadka maxamuud garaad sheegtay ee la sacaanood ka qaylinayay maxamuud garaad ma matalaan mana jira maxamuud garaad shiray maxamuud garaad hadduu shiro waad arki lahayd ummadii maxamuud garaad oo la sacaanood tuqluqulaysa waad arki lahayd mana ahayd hadalladii yarayd iyo qodobadii yaryaraa ee jilicsanaa ee ay soo saarayeen ee ay wiilasheeda akhriyeenna maxamuud garaad dad ka weyn weeye marka soori xaal baa ka siiyey maxamuud garaad xaal baan ka siima dadka halka ka hadlayay dadkaasina waxay ahayn qaadwalayaal xayraana oo Soomaaliland lacag siin jirtay oo dabeedna markii sool iyo sanaag iyo cayn iyo Soomaaliland ay heshiis maamulka khaatimo wada galeen dadkii lacagta laga goostay Soomaaliland ka goostay dadkaas ay ahayd marka sidaas ay ahayd wari Abbas heshiiska Soomaaliland iyo khaatimo galeen maxay tahay bulshada badan waa Soomaaliya ku daawanaysa Soomaalidu waxay ku maamahdaa hadalla meel dheer bugaara dhagaxna meel dhow heshiiska Soomaaliland iyo maamulka khaatimo ay galeen heshiiska Soomaaliland iyo maamul goboleedka khaatimo ay wada galeen hadda ilaa iyo hadda waxaynu haynaa waa 12 qodob waa 12 weeye wax laga qayliyaba oo wali la sameeyay ma jirto wax la sameeyay ma jirto waa 12 qodob ee ardasanaba ka soo baxay halkaas ay taagantahay dawaynu sugaynaa heshiiska Soomaaliland iyo khaatimo ay gaari doonto waynu sugaynaa anu aragtidayda ama santahay magaalada xirxid oo hoos timaada gobolka Sool waxa dhawaan shir ku yeeshay madaxweynaha maamulka khaatimo Professor Ali Khaliif Galeen iyo xubno ka socday Soomaaliland oo hogaaminayay Baasha Maxamed Cabdi oo ah gudoomiyaha koowaad ee baarlamaanka Soomaaliland waxa kale oo goobta ku sugnaa xildhibaan Maxamed Axmed Deere Akoob xildhibaan Cawi baasna meesha ku soo xildhibaanka badan oo ka tirsan xildhibaanada Soomaaliland كلهم بيهرك كقاتين سيد مدحونها باش محمد عبد وصحافته كجها الله ما هو هرجس كجوار بشيء إنه يكون على أربعة سنوات بوق بدن يصلح بدن برير خاتم مقابلات كلها مدح خاتم يو مدح كسر بالبرلمان كسمعنا هذا كده وأكتر وسؤال فعلا آد بنسلوين يعني شركي كدعي مجال حر كدعي أها قدوميها لبعض برلمان كسوماليلاند باشا محمد عبد يحلبان نقول إيو وسيركي هره عدالة عسوي يرجع كره السعودية سيدا في عن أيو السيرين معسومة دي ومدحوينه قبلت كخاتمة ودري إنه يسكو أركان أو يكون هذلان سيدا أتشيبين أو أي حد تجين أو أي مدحوينها يقول هذلين آد برسولوينيا هذا الذي في عنيد الدكول قدوميها برلمانكا قدوم باش أي صحافة السيئة آد برسولوينيا دكول عسونا ونبنا مساحبة هاي كري مركا لقرها إنا نسكننا هاي غير خاطر إنا نسكننا هاي
ونبنا صاحبه هاي سجارة صاحبه هاي صومالي بركة الجوي ونبنا آد صاحبنا ونبنا آد سمقامه آد بنقوم هذا إياه سيد في عنايد وهاب لنا كل يقدون يكحينكو يوسيرك هراء عسوي السمال الله آد بنقوم هذا إياه وحن كلا كو أماريا أن ننكو هدو مامور كتر سيهي مامور هدو كتر سيهي قبيل مرة دتكو حيسكو خلدان ننكو قفكو مركو مامور كتر سيهي يمركو قبيل يهي وكرتان قبيل كاغو يسوى قارت هاد مامور كتر سيهي كرتان أنا أقول البهتاء أيام نيروبي كشقين نيروبي الدولة كينيا كتر سيهي كرا إثيوبيا كتر سيهي كرا لكن قبيل كاغو أدو البهانتي وحوي واحد سكو خلطيان قبيل كويه قفكو يا السيستم كي الدولة وكتشر الأشقيني آد بان وهم علينا يا نقول يا باشا محمد عبد يا عسوي سيدا في عن السيستم كي الدولة دي يا مملكة كتشرين أي أو أركان وهي منكم مملكة كتشرو وإنه كل شقية سياسة مملكيس وإنه كل شقية مركا وحن هالكاس آد وجوهم بالينا يا maamulkay ku jireen siyaasaddiisi markay arkeen inuu ku wajahan yahay maamul goboleedka Khaatumo iyo qaab wada hadal wanaagsan way asiibeen waana systemka maamul iyo ninu shaqeeya waa qaabkaas dad ba waxay yiraahdeen ama dadka iska xunxun ee meelaha ka hadla waxay nimanka odayaasha Soomaaliland ka yimi ay ku cambaareeyeen inay Cali Khaliif isku qolayeen sida ma سياسة قلنا ماله مركز مامور كتر سنة هينا تنوي ولا مامور كتر سنة على خليف ومدحوينها مامور قبلات كخاطمه ومدحويني إنه راه بلي هاي وقبيل هاي وهوس السوي يدقال يا باشا محمد عبدنا مامور بيكوتشران مامور بي مثلا نظام كيسي تستور كيسي شرعية ديسا أي كوتشران لكن البهتيين أما يقولك كليهين وجودي لماذا؟ يا إن المسؤول تهي ولا لا بكرتها إن السيستم كنت شفته إن الرئيس تهي لا بكرتها تدخل باس شو خلطان من شفته واحد قبيل لي هذا نمان كاني وحكي مادين سوماليلاند أي مسؤولية كايان وحي حنبارسيين أوضان السيستم كذا يهوش أول سيدا سهل وح على خليف يسوي مادين أو كلمة شفته وح يسوي مادين نظام كاس صعراء السوماليلاند يمام الجولات كخطوة تاسع سكانتي وهالكا واحد قبيل لي هذا ما جبته سيدا شوية وما سنتوري كورنيل كلنك مدحضة سوماليلاند كالصوتي وباشا هجامني مدحضناها خاطبه بروفيسور علي خليل كريم waxaa jirta xubno kaloo yara Soomaaliland ku jira oo ka tirsan Soomaaliland asumaad miyuusan u fidin madaxweynaha meel la oran madaxweynuhu inta isku reerka haayeen iyo u yaad madaxweynaha asumaad u fidiyay oo intii ka aqbashay asumaadda yaa ka qabgalay shirka waa fahmay wariye sida ma Abbas madaxweynuhu maamul goboleedka Khaatumo waa madaxweyne Soomaaliland buu dhiil kula jira waxa weeye sida uu nimanka u yimi ودي وقفدي معصمت إن إسأركان أو كوضا هاللام وده هذا الكسومالي لان أو يبكو تران إيه مام القبلات كخاطبه ويسقم الحوينة وياي إن كوضا هاللام بان ما كانوا هرا لو وياه سيدا سوق الحوينة وياه بنقول فكر لسنا في صدق كون أصله عليه ولي ما إيمان أما يسنا بيانا ولي وقوة شك قبا ولي وقوة أن واحد الصعدة بفهم سنين وقوة أن قرنا إن ماملك كتيران maamulka ay ku jiraan siyaasaddiisa ma garanaynin haddaan tusaale u soo qaato wari Abbas waa sida faratoon oo kale wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland waa kaas oo kale sida uu dhaqmayo iyo habku markuu la sacaanood yimaado uu dhaqmayo maba fahansanaba mana moodidba inuu wasiir yahay waxba maba garanayaba inuu wasiir inuu maamul wasiir maamulka uu ku jiro siyaasadda ku shaqeynayaba waa nin dhinac ka marsan ma faahfaahsan because markaad wasiir tahay oo system iyo dawlad aad wasiir ka tahay oo maamul wasiir ka tahay waa in aad siyaasadda maamulkaaga siyaasaddiisa waa inaad ku shaqeyso haddaad marka ku qanacsanayd maamulka aad ka tirsansayd siyaasaddiisa haddaad ku qanacsanayna waa in aad iska casisho dabadeedna aad dibadda markaad maamulka uga baxdo
wixii aad ka tagtay waa in aad markaa sheegto xor baad u tahay laakiin adoo maamulka ku jira inaad maamulka ku jirtay siyaasadiisii adigood ka soo horjeesato kuma jirto nidaamka dowladnimo iyo nidaamka wasiirnimo marka ninka faratoon la yidhaahdaa wuxuu u baahanaa inta aan somaliland iska soo qabsan isagoo waddada maraya oo isir ka dhigin waxay ahayd bal horta inay seminaar inay u furaan qaabka wasiir ku shaqeeyo oo systemka wasiirka u yahay iyo ummadda si ugu shaqeynayo bal horta in seminaar loo furo oo marka seminaarka loo furo oo fahmo kabacdi wasiir laga dhigo ama kabacdiba uu marka shaqada bilaabo laakiin marka ninkaasi waa ka dhacsan yahay ama ninkaasi ma mafahsanaba habka iyo nidaamku ku shaqeynayo ee uu laascaanood maalin walba intuu reerihii reer Khaatumo ee walaalaha ahaa ee wada deganaa intuu yimaado uu oranayo reer hebel baa ka fiican iyo reer hebel baa saasa iyo reer hebel baa reer hebel garaada iyo reer hebel baa maxamuuda iyo reer hebel baa faraxa maalin walba ku jira maamulku ku jirayna waxa wada hadal kula jira maamul goboleedka Khaatumo ayuu wada hadal kula jira halka waxa muuqata isfahmisnaan ama aqoon darro ka muuqata faratoon ka muuqata faratoon aqoon darro wasiirnimo ka muuqata maba garanayaba sidoo ku shaqeynayo waxaan u sheegayaa Somaliland inay ninka faratoon la yiraahdo shaqada ka erido oo ay keento nin kale oo shaqada garanaya amaba wada kara wada hadalka Somaliland iyo Khaatumo marka waxaan u sheegayaa Somaliland oo ka codsanaya ninka faratoon inay ka bedesho meesha oo ay keento nin culus oo noqon kara wasiir arrimaha gudaha ah oo isku xidha maamul goboleedka Khaatumo iyo maamulka Somaliland wada hadalkooda isku xidha oo halkaas ummadda halka joogta iyo wada hadalka iyo heshiiska iyo nidaamka wada kara oo culus وين السوماليلاند كنتو وكنكتو وسير المها جودها وين كلا كنتو سيدا سان كقعد صار السوماليلاند ما صدق هاي كورنيل مقالة بوخو اللي حرنتو قبل كعين نوان وحكا عايشين بلارن أو عايسوي مادة ريال وحكا شركة واحد وقابلني جراد كان جراد عبد الرزاق جراد صوفي وحي كو عبدي إنه قدر عيكو شجن معمول كخاتمه إنه سنمتلين جبوتي أدي سببه عملها وضعها كخاتمه يسمعنا وكفر مريء أما وكسر ضرب إن عايزن كومة المعمول كخاتمه فكر كاجا جراد كده معي ديجان كقبل جل يقولون أو كقط بدي أنت عشان عندك شيء سوالف كمان وري عباس وأكو فهمي وأنا جاي سبي شركة ودن بي هذا يقول كعين كدعي أي سوي مادين جروب كأضياشة هو جامني عبد الرزاق جراسوفي وأن داوني عبد الرزاق جراسوفي مركولها علينا من متلو عيدو ما نادر سن سيداس مركولها عبد الرزاق جراسوفي وأن داوني وحقيم مغطى عبد الرزاق جراسوفي مركو سالي هاي إن أنو واحد قارئ iyo wax muruq iyo maal midna kaga bixin maamul goboleedka Khaatumo midna kaga ma bixin hadii ay kaga bixi lahayd muruq iyo maal haduu Khaatumo sameynteeda uu kaga bixi lahayd sida ma yiraahdeen aniguna anoo garaadka ixtiraamaya intii la sameynayay maamul goboleedka Khaatumo hore uga soo hadlay taleex iyo adduunka dhulkii la marayay rag ku dhintay ku dhaawacmeen جلال عبد الرزاق جراسوفي كما دحموقن وأنا جاي حلقة إنه سجلان هين لكن كم دحموقن ومد الرخاطمه هوشة هرجن ككوتشرتي عبد الرزاق جراسوفي كم تشرين وحكوتشري إلى هاي هون حريستي عبد الله جراسوفي أي كوتشري نينكاس جرات كاس إلى هاي حريستي كنا هكوراديو نينكاس أي هرجن كأنه كوتشري حلقة اللي سمينا الشركة تريح لقوا قمني ninka garaadka dhintay Allah uu naxariistay garaadkaas ku jiray garaadkaas ayaan aad ugu ducaynay Ilaahay inuu janno firdawsa ka waraabiyo ninkaas ayaa muruq iyo maalba kaga baxay عبد الرزاق جراسوفي hadii sida garaadkaas oo maal iyo muruqba kaga bixi lahaa maanta kuma nuuxsadeen inaan Khaatumo jirin Ali Khalifa oo la diidaa waxay la mid tahay Khaatumo aan ogolayn
خاتمة هداد ديدو علي خليف باديدي علي هداد ديدو خاتمة ديدي ويسكو حرينين مركا وحوي عبد الساقر الصوفي وحوي وقرات reer baa doortay ilaa iyo maalintii la doortay ninkaasi ama garaadkaasi waxa ka muuqata dagaal ku wajahan maamul goboleedka Khaatumo cali hadaad diido Khaatumo diid ma kala duwana Khaatumo jeclahay waxaan nabcahay cali baan jeclahay Khaatumo nabcahay may sida maaha maamul goboleedka Khaatumo hadaad cali nacdo iyo hadaad maamul goboleedka Khaatumo nacdo waa isku mid إلى قرات صوفي أما عبد الرزاق قرات صوفي وحوي إن مر والبا حالك السبب جروب أضيانا تصور ريو هكا قدبتك تيجينية وساوي تاجن والله بدك كحم بينيو قراتكو وما بهنا إنه مر والبا إنتو يارو جروب أضيانا إنتو يارو إنه يسسوه تاجو سيد نمك السياسيين تاها كامبين كوتشرا يو كراستك الريحانية سيدو ذكروا دقمية وحوي مر والبا وحسوت تاجي هاي تفيجة هل كاسنا أفرض أما طبعا أنا لو أعطينا وصدق ذي توير ده يسوي تاجي هاي يسوي الله بدأ كحم بينيا ووتيجي بدلية هاي وديجي بقول كتاجي أي جرات كاركسا جرات كوحنو الشريعة أنا بهدان جرات هان لها قولي جاين شوقي لها بقر برا كن نقول لها قول كي فرد جان فريسان لها هل كاس الله يقول إيمان لها جرات كوحل الدنيا إن الله عرره ما هجراتك إلا كعرره maaha garaadku waa in marka dadku soo wareeraan ama dadku is soo qabtaan waa in gurigiisa iyo qolkiisa fadhiga loogu yimaadaa oo halka ku go'aamiya garaadku maaha inuu is soo taago marba koox sidii nimanka siyaasiyiinta aan Cabdirasaaq Garaad Soofe waxaan kala talinaya aniga oo ixtiraamaya ila Garaad Soofe inuu iska daayo kooxaysigan iyo gurubiskan oo mar walba intuu soo tabo waad ogeydeen meesha la yiraahdo كل مسوتني يسوي هرتاجنا سدوا ونحن نحسنينا وهذه أكيد إن وحقو كل كلا سوتاجي ماشي اللي هيجلده وذاك الشيء سو ونحن نحسني مال والبا يسوي سوتاجن جرات كمركز سيدا كم فينا وحيكون في عند جراتكو إنه كجاب صد التيفية ده إنه كجاب صد جروبيسكا إنه كجاب صد إلا سياسة ما هي جراتكو وإنه جورجي سكوا كذا جراتكو وإنه جورجي سلوي ماتوا وإنه إسكندر يكو حيسكا وإنه هذا جراتكو نين أفغان جورجي سكوا ما سياسي كرسي كرهي حنايا إنه سيدا ده وهذا جراتكو وحش شكتي إنه يه جرات قولك عينات أيو شكتا وحنا شاقيا إنه وحنا كهذا يا سوريا سنة يا عين سيدا مر هداد جرات شاقتي عينا أنا أمسن إن الجراد كي قبل كعين عين دمتي وحوي جراد بدن بتشوفه وحوي وإن كذا ورصته أو كذا صته سياسة كذا صو أنا أقول جراد كون استحينية أنا احترامية وحن جراد كقعد صنية إنه يسكت يجروبيسك إنه يسكت دجال كان خاتمة كم مقدة دجال خاتمة أو كم مقدة جراد عبد الرزاق جراد صوفه وحكم مقدة دجال خاطمة كمقدة جرات كبرك وحنوش شيء خاطمة دتبا وتشبي دتبا أردنتي دتبا كنا قارة ديري دتبا شقوين كود لغيري جرات كان أنا أنت سكرت لنا أنت سنة كجبحية وحن كلا أمها العليا غير خاطمة الجبل كعين جارهان كهضلي مجال البوه غيره كهضلي كم ده هاين غير كخالد كم ده هاين غير كيحيى كم ده هاين على الجري قيب كم ده غيرها غير على الجري قيب كم ده هذا الذي سعنا هي حالك يا كبحيان هي اللي باتني بدحوينها لو جستي أي حالك كبحيان أيام آدي غيرها وما هالعليا هي موقف كعب إسكتاجين هي التاجرين هي هذا أي سيان ما ملكه خاطمه آد بان غير خاطمه خالد يحيى ريع على الجري قيب كم ده أنا جوان نقارنا ريرها رير خاطمة رير كحون يرير كونكسن وانو كنا نقارنا هذا نقول بشوكتنا هاي بنو كنا نقارنا ريرها رير بوهود إن بدحوينها حالك كبحية يلي بتدي إيربوت كده جيستي دبنا إسكندر جايو برنامج إسكندر جايو أنا وشغلكم مدين بنقول بهالعلنية وما سنتي كورنر وحنوصل لعند دونا حاجة يدورة فدرالية الصومالية وأنا محاجرتي هرنا إنه قصة حسنية حكومة عصوبة صولسي
رئيسل وزراء عصب dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxa ka soo dhex muuqday golaha cusub wasiirada Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Xaashi waa aqoonyahan ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha wuxuu ka soo jeedaa deegaan gobolada Sool Sanaag Cali ee reer Khartoum waxaa loo magacaabay xilka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda dowladda federaalka ee Soomaaliya sidoo waa aragtaa xilka cusub loo magacaabay Dr. Cabdiraxmaan Xaashi وما تتوري ان عبد الرحمن محمد حاشي واني اقويهنا واني اقلما انه مدحوينها الصوماليه نقض دور جرنا وحنا من هذا يلبنا وتقطيبا هو نسيبكيس وحوي اد بن سدوين عبد الرحمن محمد حاشي واني اقويهنا ودبانتا لكن وحوي وسير كلا سيتي ري خاطمو محمد عبد الله فرماجو iyo ninkan ra'iisul wasaaruhu waxay reer khaatuma ku soo dhex tuureen ama ay siiyeen wasiir caata oo dhagala oo indara oo aan luga lahayn oo gabca lahayn oo kalluumaysiga la yiraahdo ayay ku soo dhex tuureen oo ay waa cad quureed baan ugu oran karaa waa cad quureed laguma ixtiraamin golaha wasiirada reerka Sood Sanaag iyo Cayn iyo ummadda meesha degan laguma ixtiraamin aniguna دكتور محمد دكتور عبد الرحمن محمد حاشي كما سو دوينايو وسيركا عاطبا ee indhaha iyo dhagaha kuma soo dhaweynayo qabana ma oranayo waa qursi haduusan isagu uga dan lahayn waaban wasiir noqday oo title ahaan oo soo uga dan lahayn noloshiisa inta ka hadhay in la yiraahdo wasiirka waa wasiirkii hore ee kalluumaysiga Soomaaliya haduusan title ka rabin أنا كم سودمين يو نكتب عبد الرحمن محمد حاشي وسير كعاطلة إن لسكر صار نحتورين ربانتي يقصي وي إن غير خاطبنا وحنوش شيء ده كقرطة ولي جيب الدولة دي تمادس ونسعتنا ولي جيب الدولة دي تمادس ونسودوينا وحلا يا وحلو احترامنا ما شفته وحلا يا وحلو وصيانة ما شفته رأي خاطبة ولا ركتان مر بصير أساكي ما دابا ودين ساكا توريا ووددي هوري حسن شيخ أيا فرمانتنا هيا وددي وحسن شيخ مري يقول بانتو مري اللي بتقول كل سنة تي لفتي الراد كيدي أيا محمد عبد الله فرمانتو يرسل سارة هيا كم مقطع أنا أقول رجعنا كبقى مدحوينها ما من قبلات كخاطمه أيا هوري وشجعي إن مشاس حمر وحلا له وح إن جاي لقينا نكل سيد إلى هالسنة أيوتوبي حمر مدحوينها خاطمه ونا الصحراء ونا الشجع وحلا إيه وح ماشى كيا لنا إنا يتم دولة داس محمد عبد الرحمن ودولة داس إن محمد عبد الله فرماجو يرسل سارها سائل سمينا أنا جا أقول أنا هل وحقيقي مقطع دولة كونفرنت با يقدح مقطع وما سنتهي وهذا الكخاتمي الصومالي الآن حقوق كنت بي سيدانو حق هاينا وهذا الكخاتمي الصومالي الآن حقوق صعود ذاك جيبوتي وحفر المعلومات الشليحة ما أنتنا وصعودي فالوردحين كوبان نقصي وهذا الكخاتمي الصومالي الآن أضل ما سنتوري عباس شركي جيبوتي كفر منها الصومالي الآن يخاطمه أنا وحيقوم مقالة أولي إن الله فرين لكن ولا فريا سيدا وقلنا خساها بدن بان الله فريا إن وحكون درسنا يا أوكله مدحوينها ما من قبلك خاطر ويحد شوجا هذا إمارات كعرب تدوبي بتشوجا هل كاسو تجي إنه ضد كتشاليد غير خاطر إيه شوفت إماراتك إنه هل كاس وذا تشي يوذا هذا إنه كراسة يشوف سيدا سنو شوجا قارنا واحد هذين سيدي عبد الرزاق قرأ صوفي وولدك هذا الكيري هالشيء اللي يقول جليه بين أبورك أما قرصوديك وولدك اللي يقول جليه إماراتك إن وحكت شر مرة إماراتك وحكرصودية الصومالي اللي إمام القبائل كقطرية محمد مدحوينه على خليف كلي هالشيء قرصودية اللي يقول جليه مرة محاضر القرينة يابا 16 والله شيء هشيسكو يوضع هذا الله ينام كنا وحكنا عيان جبوتي كنا عيان وحلا قرينا يا ما جرتو مركا دتكنا هو هذا هيسكد عيان بنتنا هيسكد عيان وحلا خيامين يا وحلا قرينا يا من ما جرتو شركنا وكيلو جين وذا هذا الكيسي جبوتي مركا هرنا كنا عيان مرنا وأرض سوا كنا عيان هكا صنو مريا وأنا داعية إن شاء الله الكريم. وما سنتهي كورنيلا قبل ودي برنامج كحكتوا بري من كل سنان
كهر أنت هذا كوبين دولة النحية الصومالية وحد كم ده معمولياشي مع ذكي سيدوين يقولوا ده معمولياشي لامها شدال كبر بره مجال دول الساحل حاجة إن هذا اللي جه الجرينيو بربرة سلك ملتري وهي الجرينيسو دولة الإمارات dad badan oo Soomaaliyeed fikrad badan ka kala dhibteen بالفائدة uu leeyahay Somaliland oo aad hin maamul darisa iyo fikrad ahaan oo xataa aqoonyahan baa tahay arrimahan siyaasadda si fiican ugu doonaa si wararkaas liga military barba bismillaahir rahmaanir rahiim su'aal fiican adeer waa runta anigu waa runta sidaad u sheegtay waxa ka soo shaqeyn jiray intaan ciidamada gelin wakaalada batroolka kaydka dhexe haamaha batroolka berbera ka shaqeyn jiray waxaana ahaa maamulka ku-xigeenka waaxda shidaalka iyo saliidaha ee kaydka dhexe haamaha batroolka berbera ayaan ahaa waana shaqadii ugu horeysay ee halkaan ka bilaabo ilaahay ha u naxariistay waxaana ay qoray shaqada ninkii la oran jiray maxamuud cismaan cawid maarayihii guud ee wakaalada batroolka Soomaaliyeed ee dhintay ilaahay ha u naxariistay waa dhaweyd buu dhintay ilaahay ha u naxariisto waa sida soo laabanaya saldhiga berbera banu soo laabanaya horta go'aanka waxa iskale maamulka Somaliland ayaa horta go'aanka iskale laakiin anigu Cabbaas waxaan dhiibanayaa ra'yigayga iyo su'aashada weydiisay saldhig ciidan ayaa laga siiyay Imaaraadka berbera waay saldhigaasi markuu yimaado berbera ee laga sameeyo ma laga helayaa oo shacabka Somaliland gaar ahaan kuwa berbera jooga shaqo ma ka helaya oo subaxii intay ka tagaan guryahoodii intay aadaan saldhigii ciidanka shaqo ma la siinaya saldhiga berbera muxuu bulshadii u soo kordhinaya ma soo kordhinayaa jaamacado ma soo kordhinayaa beero agoonta masaakiinta bakhtiisa ee Somaliland wax ma taraya highway iyo wadooyin waaweyn saldhigaasi ma u dhisaya su'aashu taas isweydiin inta aan sheegay saldhiga berbera ma laga helaya iskuul ma laga helaya jaamacad ma laga helaya shaqaale ama berberaha joogan hargeysa joogan ummadda halka degan shaqo ma ka helaysaa su'aasha taas haddaan ka jawaabo saldhiga berbera iskuul lagama helayo oo jaamacad lagama helayo oo highway iyo wadooyin quraxa badan lagama helayo oo shaqaale intuu berbera ka tago berbera ilaa ku yaala saldhigaasi shaqaale intay ka tagaan magaalada berbera tagaya oo intay ka soo shaqeystaan saldhiga ka soo noqonaya oo magaalooyinka ka soo noqonaya ma jiro because of waa saldhig ciidan wey saldhig ciidanna cid shacaba oo qof shacaba oo ciidankaas aan ka tirsanayn qof aan ciidanka ka tirsanayn intuu iska galo oo ka soo baxo oo iska galo ka soo baxo ma jiro saldhigan iskuul lagama helayo jaamacadna lagama helayo highway u dhisayana ma jiro waa saldhig ciidan diyaaradaha soo fadhiisanaya tankis baa imaanaya way duulaysaa diyaaradaasi dhul bay soo duqaynaysaa dad bay soo duqaynaysaa way soo noqonaysaa dib ayay isu habaynaysaa way noqonaysaa waxbay soo duqaynaysaa way soo noqonaysaa shaqaday horta qabanaysa waxa weeye dagaal horumar bulsho oo shacabka areada ku nool ay ka helayaan ka faa'iidayaan ma jirto waa military way saldhiga haddaad weydiisay wari Cabbaas saldhiga waa saldhig military qof kastana wuu garanaya ciidanka meesha yimi ee saldhiga imaanaya dadka magaalada jooga ee businesska ku haysta dadka ciidankaas intuu yimaado magaalada berbera yimaado alaabta iyo waxa yaala ma ka gadanayaan dadka businesska ma ka gadanayaan waa may ciidankaasi wax allaale iyo wax walba uu baahan yahay ciidanku isaga sita wax walba isaga sita dhammaan waa u dhan yihiin cuntadiisa waa u dhan shidaalkiisa waa u dhan wax walba oo qof cuno ciidankaas uu wata wax uu berbera ay ka faa'iideyso oo dadka businesska xitaa ku haysta
magaalada degan inta ciidankaas yimaado ay ka adeegtaan oo lacag ka helayaan ma jirto waxa weeye ciidankaas waa ciidan military qof shacaba oo geli kara oo ama ay shaqo siinayaan ama ay wax kala tarayaan midna ma jirto qof walibana wuu garanaya inay ciidan military oo meel degan uu garanaya hase ahaatee maxaa kasii daran diyaaradda ka duushay berbera ee bayska ka duushay ee dad iyo dhul soo duqaysay ee soo noqotay dhulkan ay ku soo noqotay dadka la duqeeyey cadow ma u noqonaya yes waa u noqonaya because diyaarad qof kasta diyaarad duqayso meesha ka timid dacwad baad la noqonaysa caalamka maanta aan joognana waad ogtihiin marka somaliland waxaan kula talinayaa dowlad la aqoonsan yahay ma tiidin dowlad securitygeeda iyo xuduudaheeda uu sugan yahay ma tihiin marka waxaan u sheegayaa in ay nabadgelyada yar ee ilaahay siiyey in aanay ku bedelin ama inaan laislaba jirin dowlado cod ah oo dagaal isku haya yaana isla jirin waa inay iska ilaaliyaan waxyaalaha noocaas oo kale ah oo nabadgelyada yar ee ilaahay siiyey ay ilaashadaan taasaan anuguna ka leeyahay go-aankana iyagaa iskale وماسن تاي كورنيل gabagabadii barnaamijkeena ku jirnaa bulshada Soomaaliyeed ee ku daawanaysa iyo bulshada reer Khaatumo fikradda ama fursadda qaaliga maxaad uga faa'iideysanaysaa gabagabadii barnaamijkeena ku jirnaa reer Khaatumo waxaan fursadda meesha ugu dambeysay marayna waxaan ka faa'iideysanayaa bariyahan dambe waxa aynu anigu aan ku arkay dhaqan xumo ku soo korodhay gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn magaalooyinkeena iyo degmooyinkeena iyo goboleed ku soo korodhay dhaqan xumidaas oo ah oo anigu aan hore weligay u arag oo ah in koox ama group ama odayaal ama ay yiraahdaan dadkii reer Khaatumo ay wada deganaa hebel ha naga baxo ama kooxaas ha naga baxdo ama annaga magaalada leh ama annaga dhulkan leh ha naga baxeen anigu waxaan arki jiray reer baadiyaha oo geel iyo kala dhaca ama ceel isku dila ayaan ogaa laakiin maan ogeyn magaalooyinka reer Khaatumo Sool iyo Sanaag ay dhul baahantee oo dadkii deganaa leeyihiin reer hebel waa inuu naga baxa magaalada nooga baxo ama waa inuu hebel nooga baxo magaalada taasaan ka digaya gaar ahaan markaan aad u xuso arrintaas oo anigu aan ka saxan waayey oo aan aad ula yaabay markaan buuhoodle kooxaha jooga ama groups jooga ay aad iyo aad ugu celceliyaan waa inuu magaalada ka baxo ama aanu nagu soo noqon madaxweynaha cali khaliif kale waa inuusan magaalada buuhoodle ku soo noqon taasaan anigu aad ula yaabo madaxweyne cali khaliif galay magaalada waa nin dhulbahante awey magaalada buuhoodle waa magaaladiisi dhulbahante magaalooyin tuulooyin waa la kala degan yahay waana loo kala badan yahay cali khaliif waa nin dhulbahanta magaalada buuhoodlena xaq buu leeyahay cid ka saari kartana male laakiin waxaan ka digayaa gruubka maalin walba ku hadaaqaya waa in cali khaliif buuhoodle ka baxo gruubka noocaasa message u diraya markaad cali khaliif tidhaahdid buuhoodle ha ka baxo miyaadan ka baqaynin ama miyayna ahayn fidno aad reer Khaatumo dhexdooda ka abuurayso taasoo ah markaad cali tiraahdo buuhoodle ka baxo cali dad buu la dhashay oo rag iyo dad iyo ummad ayuu ka dhashay Soomaalida xataa qabiilku waa basal cali wuxuu noqonayaa reer buu ka soo jeedayaa dad buu ka dhashay miyaadan dadka nooca u hadlaya ee buuhoodle cali ha ka baxo lahow miyaa ka maqan tahay in markaad saad tidhaahdo in adiga laftigaagu buuhoodle ama magaalo kala joog ama buuhoodle joogo markaad saa ku hadaaqdo xaggee aad saado ka soo qaad anigu markaan tuuladaydii aan ka soo jeedo aan idhaaho hebel ha ka baxo ama reer hebel ha ka baxo ee aan tuuladaydii xidho anigu xaggaan maraya ila meel walba iyo waddo kastoo aan maraba reer baa degan dadkan marayo iyo dadkan aadayo miyaan ahayn dadkii aan leeyahay magaalada ka baxeen halkaa miyaanan markaa fidno ahayn dadka ku hadlaya maalin walba cali khaliif buuhoodle waa inuu nooga baxo waa inaan nagu soo noqon ayaan messagekan u diraya leeyahay dadka reer Khaatumo ee wada nool ee walaalaha wada degan ha ka daaya fidnada aad dhex dhigaysaan
adigu markaa tiraahdo cali khaliifa ka baxo buuhoodle markaa taagan tahay adigu xaggee maraysa bal adigu isweydiiyo xaggee aadaysa xaggaad mari ilaa waa lagu wada yaqaanaa markaad cali tiraahdo buuhoodle ka bax waa lagu garanayaa nin kale buuhoodle cali ha ka baxo ama garaad hebel ha ka baxo buuhoodle ama ree hebel ha ka baxeen markaad buuhoodle ka dhex leedahay waa lagu garanayaa dadkaad leedahay ha ka baxeen magaalada buuhoodle iyo magaalooyinka kale aad leedahay ha ka baxeen dadkoodii baa ku arkaa adigu xaggee maraysa miyaadan fidno abuurin markaad adigu saa tiraahdid oo maalinta daba aad baxdid oo adoo quble baabuur la cararaya ama lugaynaya aad reere kale guryahood geshid ilaa waa lagu garanayaa haddii surka lagu dheereeyo ka war oo halkaa fidno weyn ay ka dhacdo oo halkaa laysku dilo waxaan ka digaya oo message u diraya groupiska xun ee soo baxay ee dhulbahantaha sheeganaya ee ku hadaaqaya maalin walba madaxweyne cali khaliif buuhooda ka baxo dadkaasaan u digayaa fidnaha u abuurina haddaad saa ku hadaaqdo waa lagu yaqaan waad ka tegi doontaa buuhoodaad ka tegi doontaa magaalo kale tegi doontaa walaalkaabaa ka tegi doona magaalo kale tegi doona ummadda reer khaatumo way isku xidhan tahay ummadda reer khaatumo dad walaala ah kelmadaha noocaasa dadka isticmaalayo ama madaxweynaha maalin walba la soo tagaan buuhooda ka baxo dadka nooca ku hadaaqayo iska daayo ummadda reer khaatumo dad walaala sool iyo sanaag iyo cayn lama kala laha dadku waa wada degan yihiin dadku way isku dhex jiraan dadku business ayay wataan maanta baabuurka buuhooda joogaa maalinta dambe saxdheer buu joogaa ka saxdheer joogaa maalinta dambe xudun buu joogaa ka xudun joogaa maalinta dambe gobolka sanaag buu joogaa war dadku meel walbay marayaan markaad qof tiraahdo ha ka baxo magaalada hebel ha ka baxo aniga ninkay odhanaya hebel magaalaha ka baxo markuu yidhaahdo walaalka iyo adeerkay baa daawanaya kasaa igule maalinta dambe markuu dhaqaaqana midbaa surka u dheereynaya halkaana fidnay noqonaysaa reerihii o dhan baa isku dilaya marka waxaan ka digayaa inay dhaqan xumida noocaasa iska ilaaliyaan sidaasaan anigu reer khaatume usoo jeedinaya waxaan kaloo usoo jeedinayaa inay taageeraan maamulkooda khaatumo ee sool iyo sanaag iyo cayn maamulkooda waa inay taageeraan waxaan kaloo u sheegayaa shir dambe oo maamul khaatumo lagu samayn doono oo xamar ka dhici doona oo buuhooda ka dhici doona ma jiro maamul khaatumo oo sool iyo sanaag cayn oo dhulbahanta yeelan doona oo kan ka dambaynaya male qof waliba taago iyada oo aan u hayo example badan anoo iyo tusaalooyin badan u hayaa horena aan in badan usoo sheegay ma awoodi karo awoodna dhulbahanta uma hayo in shir dambe inta khaatumo iyo arrintii lasoo maro dhan dhulka la dhigo in aan maanta idhaaho xamar baan shir ku qabanayaa sidii 7 oday ee habeenku dhowd qolka isku soo xidhay ee lahaa xamar baanu shir ku qabanaynaa dabadeedna buuhoodlaanu shir ku qabanaynaa been bay sheegayaan intee qof u imaan karta xamar oo qarax ka socdo ayaan shir ku qabanayaa aad ku qabatid qol hoteela ku qabatay qodobo soo saartay dad yar oo adiga kula fakeray ku yimaadeen qodobo soo saartay qodobada xagee la tegi xagee ka shaqaynayaan yaad u sheegi waa been weeye reer buuhoodlana fariin baan u dirayaa buuhoodle ma aha meel qashinka lagu daadiyo oo kii doonaya xumaan iyo kii doonaya khaatumo inuu baabi'iyaba iyo kii doonaya inuu balaayo sameeyaba meel uu ka maleego buuhoodle maaha dadka buuhoodle waxaan u sheegayaa yaan laydinla soo doonanin yaan laydinla imaanin ishortaaga shir la leeyahay waxaa lagu samayn doonaa maamul goboleed dambe iyo madaxweyneyaal dambe lagu magacaabi doonaa iska ilaaliya shiro la leeyahay oda dhaqameedyo ayaa loo qabanaya oo buuhooda loo samaynaya waxaas oo dhan marka la isu geeyo waa masiibooyin la maleegayo oo la rabo in xataa marka ugu dambaysa reer buuhooda isku dilaan reer buuhooda inay isku dilaan qof kasta oo xumaan wadaa wuxuu odhanayaa buuhood soo qaadaya war buuhoodla meel qashinka lagu daadiya noqotay waxaa la maleegayaa in reeraha reer buuhoodle ee kala jaadka ee walaalaha ay wada degan inay halkaa isku khilaafaan oo isku dilaan in badan baana laga soo shaqeeyey airportka markii la duminaya laga shaqeeyey in reer buuhood isdilaan markii madaxweynaha jidka loo gelayay baa loogu talagalay reer buuhood inay isdilaan intaas oo jaranjaro ayay ka soo gudbeen in buuhoodla isdisho
ولي ريبو هذا لقى محرم ولي لقى محرم ويصوص عطا بقى ريبو هذا وحلو شيء إسكا إيرانية شركة بنتها اللي ليه الدولة دنبال وصمينا يا إيه مدحوين يا دنبال وصمينا يا إسكا إيرانية تاس طبعا أنا كردر داونا يا ريبو هذا وما شفت هاي كوريلي فرصة غالية عند سيسي أدنى كوجو هذا علينا إن وكسلام يا إن عباس ولي عباس وحسلام يا كاميرمان حمزة علي وسلام يا إن وحسلام يا كالكالية أوح علي وسلام يا لما أنت ورياش ولو سلام يا آد بنو سنتين سيدا في عن آد مانون والبمركب مقشان الصوماليا جودهان يجارهان خاطمه ومقبلك خاطمه يهربها الصومالي كسكرنا لمان آد يقول ما نسانو يوري سنة آد بنكمل علينا وأنا السودوين يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا شدي قيمها يقدرين تانا قبضنا هالكلام حد ستة سوق داونسين برنامج كحكت وبري أو مانتو مرتين وها كورن أحمد جامع عيسى كورن أحمد قدنا أو ستة صادق داونسين تلفزيون كعالمي جا وبري تي في وبرنامج كان ستة صا يدرسوا عسينة يعني بوا حباس سليمان جامع بس مدري لكن كاميرا دوحة هي حمزة علي أحمد isku dubreedkii barnaamijka Cabbaas Suleymaan Jaamac Cabbaas Badani barnaamijkan barnaamij la mid ah inta ku kulmi doono waxaad ka tagay salaamu Allahi taala wa barakaatuh diiwaan ku qoran hore wadalin xasuus loo